xildhibaanada aqalka golaha shacabka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa maanta waxay doodada ka yeesheen xeerka maalgashiga darafyada badan ee dowladda federaalk ee Soomaaliya waxaana xildhibaanadu si aad uga doodeen xeerka xisaab xidhka ee maamul goboleedada waxaana halkaas xildhibaanadu si aad uga doodeen maalgashiga ay Somaliland siiso dowladda federaalk ee Soomaaliya iyadoo ay ku qiyaaseen lacag dhan 400 bilyan waxaana xildhibaanadu sheegeen in lacagtaasi ku baxdo sida ay dowladda federaalk ee Soomaaliya u sheegtay wadahadalada u dhaxeeya labada wadan ee Somaliland iyo Soomaaliya balse xildhibaan kamid ah xildhibaanada aqalka golaha shacabka ayaa ku tilmaamay arintaasi waxma kama jiraan isagoo xildhibaanadaasi ay si weyn ugu tuntuusatay xogta rasmiga ay ka hayso arrimahaasi la xiriira lacagta ay dowladda federaalk ee Soomaaliya siiso Somaliland soo kacay oo halkan aan rabay inaan ka hadlo waxa weeyaan arintan miisaaniyada ku jirta ee halkan laga dhawaaqay waxa laga dhawaaqay oo laga hadlay waxa la Somaliland waxa ku qoran 400 Somaliland waxa weeyaan Somaliland wax wada hadalada lagu bixiyaa baalay horena 200 baan maqli jiray 200 baa Somaliland ku qorano wada hadalada Somaliland bay ku qoranta Somaliland wax wada hadal oo ka socda ma jiro saddexda sano ee dawladda ku jirnay wada hadal Soomaaliya iyo Somaliland oo socda ma jiraan wax ku magacaabanina ma jiraan lacag lagu bixin karo iyo wax lagu qaadan karana ma jirto cid qaadata iyo cid bixisa iyo cid ku wada hadashaana ma jirto waayo wada hadalka Somaliland waxa la yiri wax gudiya oo magacaabana ma jirto waayo waxaan adiga laga tashan oo lagu weydiin adoo taagan oo mas'uuliyadaada ay jirto oo cid labada gole anaga ka tirsan labada gole cid naga la hadasho weydiisay ma jirto gudigaasna wax ka jira oo sharci ah ay yihiin ma jirto wax wada hadal oo Soomaaliya Somaliland saddexdan sano dhex yaalaan ma jiraan marka lacagta la leeyahay Somaliland mashaariicdiiba waraaqada la qorayo waa laga joojinaya waxa la Somaliland hal cuna qabateeyo mashaariicda laga joojiyo lacagaha laga joojiyo deeqaha soo galay laga joojiyo ma 400 baa wada hadal Somaliland lagu sheegay naaba waa xaraan Somaliland la iska daayo dhibaato inuu ku filan waa lagu hayaa mar warqad la qoro codka ifur maxay iga xidhaysaa mar warqad la qoro mar la dacweeyo mar la dhibaateeyo mar la caga la qaado oo qas iyo qaqlaan laga soo abuuro iyo dhibaato ku socota in ugu filan Somaliland way qabtaa dibna waan ku haynaa laakiin magaceedii 400 iyo xaaraanta laga joojiyo intaasan codsanaya mudane gudoomiye miisaaniyada in laga saaro